أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد التحية maanta waxa aynu u dabaaldegaynaa sanad guurida lixaad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay isla markaana dhidibada loo taagay idaacadda asal radio waxa la aasaasay sanadka markuu ahaa 2013 bishii December ilaa muddada tan oo aynu maanta joogno 12 bisha December sanadkan 2019 ay soo shaqeynaysay idaacadda asal marxalada kala gedisan ay soo martay hase ahaatee waxaa markaasi u istaagay in idaacaddan uu ka shanqariyo oo uu magaalada tan Jowhar ka suurageliyo saaxiibkay Aadan Xuseen Daawud oo aan bahwadaag dhinaca shaqada aynu ahayn xilligaas marka aan taariikh yar ama in yar aan ka faallooda aadan waxa uu ahaa wariye bahdii muqdisho ka shaqaynaysay ka mid ahaa oo aan halkaasi shaqo wadaag ku ahayn aadan marka waxaa juhdi dheer uu soo galay in magaalada Jowhar oo hal idaacad kaliya ay ka jirtay in uu ku labeeyo ama la oran karaba idaacadda asal halkii ay ahayd idaacadda labaad maanta koowaad ay soo gashay taana waxa ay ku mutaysatay run iyo cadaalad ay ku soo shaqaysay marxalada kala gedisanay soo martay dhagaha bulshada waxa ay soo gaarsiisay waxyaabo bulshada u baahan yihiin sida warar xaqiiqda ku salaysan arrimaha bulshada beeraha iyo waxyaabo badan hase ahaatee marka laga hadlayo media asal xilligaas halka ay joogto iyo halka xilligan ay joogto waa kaaf iyo kala dheeri waxa uu la jeedaa isku mid ma aha asal waxa ay ku soo shaqaysay iyo maanta oo aynu joogno sanadka 2019 bisha December waxa weeyaan waa dadaal juhdi iyo waliba maskax la isku geeyay ilaan aadan hadii aanan garabkiisa la joogin ma uusan shaqeeyeen oo xilligan halkan ma uusan soo istaageen marka sidaas darteed asal shalay halkaas ay joogtay maantana waxaa laga dhageysanayaa magaalada Jowhar guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobollo kale oo Shabeellaha Hoose uu ka mid yahay gaar ahaan Afgooye iyo waliba Balcad meel u sii dhow magaalada Muqdisho taasna waxa ay ku timid dadaal iyo waliba xil isaarid waxaan oran karaa waan idaacaddii ugu horeysay ee live streamka gasha ee gobolkan Shabeellaha Dhexe asal maadaama marxaladaas ay ku soo shaqaysay ilaa haddana ay shaqaynayso oo dadka wax ka wada ayiin dad dhalinyaro ah oo marnaba aanan quusanayno ilaa hadda ay doonayaan in juhdigooda halka ay ka sii wadaan waxaan dhihi karaa asal radio waxa marka ay u taagan tahay in ay sii qabato hawsha shalay ay qabanaysay mid ka sii bilaaran shalay hadii ay ahayd run iyo cadaalad maanta asal waxay tiigsan doontaa insha Allah in ay soo saarto waxyaabaha xaqaa'iqa ah iyo daahsoon waxayna noqon doontaa markazul xaqaa'iq wal ghawaamid xarunta xaqaa'iqooyinka iyo waxyaabaha daahsoon shalay hadaad ku ogeydeen run iyo cadaalad arintu way ka tagtayo wixii daahsanaa oo dadku malaha ee saas ay dhahayeen asal waxay ballan qaadaysaa iyada oo kaashanaysa biidnillah Allah subhanahu wa ta'ala iyo dhalinyarada garab taagan in xaqiiqda ay ka hadli doonto iyadoona runta cidna looga baqan doonin sababtoo ah anagu waxaan nahay bini'aadan waan qaldami karnaa laakiin ka hor wax la baahinayo ma aha wax degdeg lagu baahinayo waa wax laga soo baarandago oo soo maro tifaftir iyo waxyaabo badan soo mara laakiin waxa ay runtu tahay in aanu ka hadalno siyaasadda xilligan ka jirta gudaha Soomaaliya gaar ahaan Shabeellaha Dhexe asalna wallahi cidna ugama baqan doonto wayna baahin doontaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogan runta ayaan gaarsiin doonaa sababtoo ah
annaga allah ayaa na abuurtay ajasheena allah ayaa gacan ku haya ma ahan in waxyaabaha runta ah aanu ka gabano warbaahinta sideedana horumarka ay ka shaqeysaa horumarkana waan ka shaqeyn doonaa insha Allah waynu dadaali doonaa midda kalena dhageystayaashan waxaan u ballan qaadaynaa iyo dadka ina daawanaya qeybaha kala gidisan social media ama qeybaha warbaahinta bulshada in asal shalay meeshay ahayd maanta aysan joogin oo ay ka tagtay oo tallaabsatay waxaad arki doontaan warar idaacadda asal si toos uga baxaya oo si toos social media aad uga dhageysan doontaan ama aad uga daaban doontaan insha Allah waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladatan xildhibaanada wasiirada qeybaha kala gidisan bulshada odayaasha nabadoonnada haweenka dhalinyarada asal awalba waxay u taagneed in dhalinyarada horumarkooda laga shaqeeyo waan sii dadaali doontaa barnaamijyadii dhalinyaradana meesha kama marna oo hore un baa loo sii talaabsan doonaa insha Allah sanadkan sanadka xiga insha Allah waxaan rajaynaynaa guul iyo bashbash iyo barwaaqo in aan ku gaarno hal ku dhigayno sanadkan soo socda insha Allah hadii Allah uu gaarsiiyo 2020 oo wax yar ay naga xigto waa asal oo noqota markazul haqaa'iq wal ghawaamid xarunta xaqaa'iqooyinka soo bandhigta iyo waxyaabaha daasoon insha Allah aad baad u mahadsantiin